calaykum. Magacaygu waa Cabdullah. Okay, halkan waa kanaalka dunida. Maanta muuqaalkeena waxa uu ku saabsan yahay yaa dejiyey xeerarka kubadda cagta markii ugu horeysay. Shirkadda Google ayaa astaan cusub u sameysay qofkii ugu horeeyey ee dejiya xeerarka kubadda cagta oo la oran jiray Ebenezer Cobb Morley, kaasoo dhashay muddo hadda laga joogo 187 sano. Wuxuuna noolaa intii u dhaxaysay 1831 ilaa 1924. Qareenka Morley waxa uu ku dhashay magaalada Hull ee cariga dalka Ingiriiska. Waxa uu guuray Barnes oo gudaha London ku taal sanadii 1858, markaasuu jiray 27 sano. Morley oo u dhalay wasiirka isboortiska ee xilligaasi wuxuu ku wanaagsanaa doomo kaxaynta webiga Thames, waxaana ka qayb galay tartamo badan oo doomaha ah oo sanadii 1864 qabsoomay. Laakiin dhaxalkii uu ka tegey waxa uu ahaa inuu noqdo qofkii ugu horeeyey ee warqad ku qora xeerarka kubadda cagta ee maanta adduunka laga ciyaaro. Morley ka hor kubadda cagta waxay ahayd fowdo, ma lahayn tartamo nidaamsan, aad baa la iskugu khilaafsanaa. Arrintaas oo ka dhigtay in daawadayaasha kubadda cagta ay noqoto mid walwal badan laga muujiyo. Isagoo hogaaminaya naadiga Barnes ee kubadda cagta ayaa waxa uu qareenkani isu tusay in loo baahan yahay xeerar lagu dhaqmo oo dadka kala xakamaysa. Isagoo xilligaa tallaabooyin u damacsanaa ku qoray jariirad isboortiska ee Palace Life of London. Sidoo kale wuxuu la xiriiray iskuulaadka ugu sareeya ee kuwa dowladda si uu taageero u helo, laakiin arrintaa waa lagu gacan seeray. Isagoo aan kala labeyn ayuu Morley ku dhawaaqay shir Freemon's Tavern la magac baxay oo ku qabtay Holborn Oktoobar 26 sanadii 1863. Waxa uu ahaa shir taariikhi ah oo ay ka qayb galaan wakiilo ay soo diyaarsadeen kooxihii kubadda cagta waaga uu ku tunkabeynaa. Intaa kadib waxaa sameysmay xiriirka kubadda cagta ee FA oo Morley ka noqday xoghaye, markii dambena guddoomiye loo doortay. Xeerarka qabyo qoraalka ahaa ee ugu horeeyey waxay ka koobnaayeen 23 qaanuun, iyadoo xeerarkii ka dambeysay ahaa oo la isku raacay la faafiyeyna 1863, iyadoo ciwaan looga dhigay xeerarka ciyaarta. Xeerarkan waxaa laga dhaqangeliyey dhammaan daafaha kala duwan ee London, kadib UK oo dhan laga qaatay, kadibna laga dhaqangeliyey daafaha kala duwan ee dunida. Xeerarka waxaa ka mid ahaa lambarka 1 in dhirirka garoonku uu noqdo 183.88 mitir, ballaciisuna uu noqdo 91.44 mitir, iyadoo calamo lagu xodeynayo. Lambarka 2 qorituur ayaa lagu kala marayaa goolasha, iyadoo qofkii qorituurka ku guuleysta uu marayo kolba goolka uu rabo. Laacibna lama ogolo in kubadda gacmihiisa ku qaato. Laacibna gacmihiisa kuma riixi karo laacibka kooxda kale ee ka soo horjeeda. Laacibna looma ogolo in kubadda gacantiisa ku qaada duruuf kastoo jirta. Laacibna looma ogolo inuu masaamiir soo gashado kabihiisa ama ciribta kabta uu wato. Magacaygu waa Cabdullah. Okay, halkan waa kanaalka dunida.